بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة قروح بدن ميلكستا دافع عالم جوجتان كسو دوادا فيديو كله إيوه كلتون صحن صحو ما شاء الله تبارك الله ومالين قروح بدن ما شاء الله قرح يادو في عن وماركتي كلولين قبوبين حوغا وحير كليل حكته inkastoo maalmo badan oo kasoo horeeya ay jiraan oo kulul iman doonaan haddii ilaahay ka yiraahdo allah noo wada fududeeyo inta qaboobaha iyo barafa ku dhex jirtana ilaahay subxaana wa tacaala idinkana ha idin sahlo ha idin fududeeyo saad jeceshin allah ha idinka dhigo waxaana aad iyo aad idinka raaligelinaya xoogaa firyooga wuu boodboodaya maadaama aan soconayo marka aad uga raali ahaada waxaan ku lugaynayaa xaafadda dhexdeeda maasha allah tabaarakallah xaafad aad u qurux badan si qurux badan dadka ay uga shaqaysteen ilaahayna waxaan ka rajeynayaa wadankeenana sidaa iyo si ka qurux badan dowlad iyo shacab dad isla shaqeeya ilaahay haynaga wada dhigo hadda saas waa la qurxiyay lacag baa lagu bixiyay yacni saas uu qurux badan yahay dhulku haddaan hadda xabad xanjo yara galkeeda ku tuuro warqadaan ka furo ku tuuro $250 baan u maleynayaa in fine lay siinayo weliba hadday malaha iswaalwaalana xitaa inaan maaragtay jeelba aado ceebtu kasii daran iyo in lagugu qayliyo ilmo yar hadda hadduu arko anoo ku tuurayo wuu igu qaylinaya ha samaynin marka yacni waa dad wadankooda meel kastay joogaan ummadaha kale wadamadooda dhisanaya booliiska iyo dowladda iyo shicibka waa wada shaqeeyaan marka ilaahay waxaan ka baryay inagana sidaasoo kale wadankeeni nabadgeliyo inooga dhigo dad wadankooda jecel oo ku xisaabtamaya yacni wadankooda iyo quruxdiisa iyo bilicdiisa allah inaga dhigo sida ummadaha kale oo kale iyo halkan arkan oo kale maasha allah magaalada aan deganahay waa magaalo aad u qurux badan aad iyo aad u xasiloon aad iyo aad u maaragtay dad wanaagsan waxaan laga yaabaa Australia oo dhan inay saa tahay laakiin aniga magaaladan deganahay oo Melbourne baa la dhahaa gobolka Victoria weeye yacni waa gobol aad u nadaafad badan aad u degan aad u maaragtay haddana aad u dad badan haddana noloshiisa iyo dadkiisa iyo yacni subxaan allah kulli ani shakhsi ahaan aad iyo aad iyo aad aan ugu qanacsanahay aadna aan wax la mida weligay u arag ilaahayna waxaan ka baryaa kulligood allaha soo wada hadeeyo waa dad aad u wanaagsan aad yacni dad u wanaagsan weeyaan dadka wadankan maaragtay degan yacni Australiaanku ilaahay markaas soo wada hadeeyo xaafadan aniga deganahay ma degana wax Soomaali ah madow dhan anaa degan saan dareemayo haddana subxaan allah waxa lay dhaqaaleeyaa sidii qof maaragtay inaga sidaynu martida u dhaqaaleyn jirno kale bay iyagoo dhan isaga kay dhowraan yacni sidii qof marti ay nala joogo oo kale bay isaga kay dhowraan yacni ummaduna waa walaalo weeyaan inagoo dhan ba aadan iyo xaawa ayaa ina wada dhalay hal aabi iyo hal hooyo inu kasoo wada unkanmanay ilaahay waxaan ka baryaynaa saynu walaalaha u nahay ilaahay maaragtay walaalaheen yacni waxaynu jecelnahay waa diinteena oo laynala wada qaatay ilaahay inoo soo wada hadeeyo marka waa dad aad iyo aad runtii u wanaagsan oo qalbi fiican marka ani waxa la ii soo dhaweeyaa maadaama aan muslimna ahay madowna ahay yacni si qof martiba ay nala jooga ixtiraamo oo kale iskuulkii meel kasta dhakhtarkii xaafadii yacni dariskaygii dad aad iyo aad u wanaagsan subxaan allah baa ilaahay iga siiya ilaahay baa mahadda iskale mararka qaar bay Soomaalidu waxay igu dhahaan maas ka soo guur oo meelaha Soomaalida soo deg oo xaafadan anigoo degan oo gabadhoodii oo kale layga dhigtay oo ilmihiigii iyo anigiiba subxaan allah nala dhaqaaleeyo nala dhowro diintayada naloo ilaaliyo yacni respect aad u weyn nala siiyo Soomaali haddaan dhex dego maxaa buuq iyo qayla ah inaan ka faa'iidayaa inkastoo yacni aanan dhahayn Soomaalidu way xun yihiin haddana anigu waxaan aamsanahay in la kala faa'iido wax laakiin inaynu kala faa'iidno aroos aan aadno iyo aynu wareegno iyo meel aynu fadhiisano 3 saacadood ama 4 saacadood waxyaalahaasoo kale aniga ma aamsanin in la kala faa'iidi karo laakiin diinta iyo maaragtay iyo hadda dugsi oo kale tahay yacni waa la kala faa'iidi karaa haddii waxbarasho kale ay tahay waa la kala faa'iidi karaa hadday tahay maxay ahaytoy ase wuxuu qabsanaa see wadanka uga muuqanaa sidee maaragtay yacni wadankan joogno u ogaanaa muxuu xaq inoogu leeyahay maxaynu inagu si xaq ugu leenahay haddii waxaasoo dhan kale laygala hadli lahaa waa jeclaysan lahaa laakiin aanu dadkeena ilaahay amarkiisa anaan dadkeena yacni yasaynin
anigu wax dayra aan ahayn iyo negative ahayn ma arko iyo xan iyo isdagaalis iyo war laysu qabsado iyo masabid laysmasabido iyo sharaftaadoo lagu ciyaaro iyo yacni gabadh ninkeed lagu diro iyo waxyaalahaas maala yacnigaas mooyaane wax kale kuma arko midda kale aan arkay aan la kala faa'iidin waxay tahay yacni qofka maantaba haddaa wada joogtaan inkastay jiraan dad ilaahay darti u saaxiibay dadkaasaana isu soo hadha labada ilaahay darti ku saaxiiba isu soo hadha inta kale waxba saaxiibkooda ma soo hadho waxaan kaloo aaminsanahay in la kala faa'iido matalan ilmuhu af soomaaliya ku hadlaa qof badana arki maysa reer soomaaliya oo af soomaaliya ilmahooda ku hadleen hadday wadanka markula yimaadeen iyo hadday kaa soo horreeyeen iyo hadday kaa dambeeyeen ba ilmihii af soomaaliya kuma hadlayaan marka maxaa la kala faa'iidaya haddii la dhaho soomaalida ha lays dhex galo ha laysla dego waxba lama kala faa'iidayo aakhirka xataa ilmuhu waa isla baaba'aan yacni waa laysla dayacmadaa marka meel kastaa deganta ha degtid ilaahay subxaana watacaala waa dhul ilaahay waxaadna ogaataa meeshan inay tahay meeshaadii la-ana adig halkaasa ilaahay ku dejiyey inaad maaragtay ilaahay ugu xamdisid inaad jeclaatid inaad maaragtay ku faraxsanaatid meeshaad degan tahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi addoonkaygu wuxuu iga fishabaan haddaad ilaahay barwaaqiya khayr ka filatid ilaahay barwaaqiya khayr buu kaaga dhigaya haddaa shar iyo balaayo filatidna shar iyo balaayaa kula kulmaya marka ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa markasta maaragtay wax wanaagsan ka fisha marka aniga xaafadan aan deganahay waxaa ku yaala meel fardaha lagu xanaaneeyo oo faamka oo lagu xareeyo xoolaha marka meeshaasaa ku taala aniga waxaanahay aad baan u farda jecelahay soomaaliya oo dad fardoolaya baan haddana waxaan kasoo jeedaa famil farda badan leh haddana leh lahaana jiray anigoo yarbay adeeraday farda fuulka i bareen marka aad ayaan u jecelahay meeshan saddex bilood koorasaabay ku siinayaan oo welibaan lacag badan ahayn marka insha allah maybe anigoo mara fardaha fuulaya inaan maaragtay idiin soo geliyo marka fardahaasaa daris ila noqday alxamdulilah wax ka yar 5 daqiiqo oo lug ah bay guriga ilaa adigu 3 daqiiqo bay lugu jiraan marka dhinacana fardahaasa igaga yaala dhinac kale waxa igaga yaala muxuu ahaa xerada armida oo ciidamada yani ciidamada wadanka ee armida ciidamada maxay inagana waxaynu ciidamadeena sidii ciidamada qalabka sidoo kale aynu dhihi jirnay ayaa maaragtay dhinaca kalena iga degan oo iyagana maaragtay aad ugu raaxaysto markaan daawanayo dhinacana fardaha kale laakiin fardahaan aad usii jecelahay waxaan kaloo aad u jecelahay mar kasta inaan meeshan ku lugeeyo meeshaas waxaan ku xasuustaa xagaafyadii soomaaliya ee maaragtay baabuurta markaan soconayo xagaf bay dhahaysay dhagaxa quruur xasaasan qarayay shimbiro maasha allahna way ciyayeen laakiin codkaan ka xidha hadda kadib waxaan sameynayaa markaan ku lugeynayo codkaan u furaya haddii ilaahay yiraahdo marka inta waxaan ugu soo qaatay yani inaan lugeynayo idiin tuso oo lugto aad u wanaagsan tahay iyo maaragtay inaad jeclaatid wadankaaga ama meesha aad markaa joogtid inaad jeclaatid ilaahayna hayna wada jeclaysiiyo meeshaynu joogno kuwa khayr la jooga khayrna ku faafiyana allah haynaga dhigo kuwa dantooda gartana allah haynaga dhigo mar walbana ku dadaala maaragtay meesha aad degaysaan inay tahay meel iska koona ah meel aan buuq badan lahayn meel aadaan uga baqaynin caruurtu markay weynaato xilliga 16 ay gaadho ilmuhu albaabka ka baxayo meel at least meel maaragtay environment fiican oo aad isleedahay xitaa hadduu wareegi lahaa cidna ma gaari karo meel iska yara fiican meelba meeshay ka koonaysan tahay caruurta waa uga fiican tahay marka insha allah lagu dadaalo ilaahay subxaana watacaalana qof kasta meeshuu jooga ha ku ammaansado ha ku ilaaliyo waxaadna ogaataan soomaali haddaad dhex degtid iyo haddaad ummad kale dhex degtid waa kii ilaahay kugu hadeeyo waana kii ilaahay kugu sakhiro waana meesha ilaahay kuga asturo dadkeenana anigu runta haddaan ka hadlo anaan dadkeena yasaynin waxaan dhihi lahaa hala bedesho meelshaad qofkeenu soo dego meel kasii fogdeg sidaasaa nabadgelyada ku jirtaa khayrku ku jira diintiina meel kasta iska gaadhisaa online baa ku dhiganaysaa dugsiyadii meel kasta laga soo gelayo onlinekii iskuuladiina meelba meesha kasii koonaysan tahayna way ka iskuul fiican tahay oo dadka maaragtay lacagtale meelahay degaan ama kuwada koona hadda xaafadan maasha allah dadkooda taajiriinta degan ilaahay baa ani guriga iga siiyey laakiin marka iskuuladooda aad bay u fiican yihiin iskuulada koonaha aad bay u fiican yihiin laakiin meelaha lagu badan yahay iskuuladooda dadka jaangiga ku badan yacni balaayo dhan baa ka buuxda ilmuhu ku halaabaan awlaada allah inoo hagaajiyo meel kasta in joogno intaan awlaada lahayn ilaahay subxaana watacaala awlaad saalixiina ha siiyo